ku socoto rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ku socoto dhammaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedyada ku socoto dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed og hanti dhowraha guud ee qaranka og dhammaan rugta ganacsiga ee maamul goboleedyada og hay'adaha nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya og wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha og ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya og madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ujeedo kala daris rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo magacaawida guddi ku meel gaar ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 102 lambarkiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharci lambar 22 ee November 1985 kuna saabsan dhismaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka markuu arkay sharci qodobka 36 farqadiisa koowaad ee qeexaya awoodda wasiirka oo ah ilaaliyaha iyo toosinta rugta ganacsiga markuu arkay qodobka 6 oo ku saabsan xubinimada rugta ganacsiga markuu arkay qodobka 16 farqadiisa koowaad kuna saabsan luminta ama ka dhicidda xubinimada rugta ganacsiga markuu arkay sharci number ee November 24 1985 kuna saabsan magacaawida guddi ku meel gaar ah ee rugta ganacsiga iyo warshadaha markuu darsay xaaladda cakiran ee ganacsatada iyo ganacsiga ee ganacsatada dalka sababtayna curyaamin howlaha laga maarmaanka u ah horumarinta ganacsiga dalka markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay 946 wa 17 ee bishii 9aad saddexda 2017 kuna saabsan kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir markuu arkay wareegtada wasaaradda ganacsiga ee sumadeedu tahay 308 wa 17 ee 26 bishii 9aad 2017 kuna saabsaneed kala dirista rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay wa 67 ee 25 bishii koowaad 2020 kuna saabsaneed kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir markuu dirsay xogaha la xiriira macluumaadka lagu gaaray go'aamida kor ku xusan ayna i cadaatay inay wali taagan yihiin sababaha keenay go'aan ka qaadistaas markii cadaatay laga maarmida habeyn lagu sameeyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed wuxuu go'aamiyay maanta oo ay taariikhdu tahay 28 2020 waxaa si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed ee hadda jira waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay guddi gudoomiye 2 ku-xigeen iyo 30 xubnood oo metela ganacsatada Soomaaliyeed sida ku xusan shaxda hoose 3 mas'uuliyadda guddigan waa sii wadista xilli hooleedka ganacsiga iyo diyaarinta muddada doorashada maamul hufan oo ay yeelato rugta ganacsiga Soomaaliyeed muddo
ku siman 60 maalmood. magacyada guddiga iyo shirkadaha la magacaabay: kow mudane cabdulaahi nuur cusmaan guddoomiye shirkad hormuud. labo mudane cabdiweli maxamuud warsame guddoomiye ku-xigeen somtel. cali xasan cali nuur guddoomiye ku-xigeen almuha general trading. afar cumar cali jimcaale xubin salaam somali bank. shan cusmaan cali cabdi xalane xubin dahabshiil bank. injineer maxamed axmed siyaad xubin premier bank. maxamed cali warsame xubin IBS bank. cabdiweli muuse xubin amal bank. luul cusmaan shire xubin nayrus financials. cali nuur xasan xubin safa group. farxaan xuseen xaydar xubin siwaan. fahma cali cilmi xasan xubin nubaco general trading. yuusuf cumar xubin mumin group. maxamed cabdalle xubin coastal oil. cabdiraxmaan xaas xubin xas petroleum. xuseen rooble xubin balgori. abukar xaaji maxamuud cabdalle xubin العربية كمباني. xaaji mirax indhayare xubin guddoomiyaha beerleyda. bashiir cabdi xubin guddoomiyaha linleyda. xuseen axmed xubin almustaqiim. cabdiraxmaan cusmaan xubin xasko. cali salaad cabdulaahi nuur xubin fatah general trading. cabdulaahi sheekh cali xubin الميزان. حاجي آمين شيخ حسين حبن ماش كمباني. عبد الله علي أدون حبن محرم. عبدي إبراهيم حب حبن الحبيب تريدين. محي الدين شيخ مصطفى حبن دنوذاك كمباني. حسن حاشي حبن قدوميها شركتها diyaaradaha. rugta ganacsiga ee gobolada xubin 5 guddoomiye. wabillahi tawfiiq.